markabkan oo ka yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa siday in ka badan 280 neef oo lo ah waxaana uu ku soo xirtay dekedda Suez ee dalkani Masar. dawladda Masar ayaa muddo 25 sano kadib Soomaaliya u fasaxday in dalkeeda si toos ah loogu soo dhoofiyo xoolaha Soomaaliya kadib booqashadii uu Masar ku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arrintan kala hadlay dhigiisa dalka Masar Mudane Cabdifataax Siisi. xogayaha safaaradda Soomaaliya ee Masar Mudane Cali Cumar Afrax oo goobjoog ahaa xaflad soo dhaweyn ahayd oo loo sameeyay markabka ay saaran yihiin xoolaha laga keenay Soomaaliya ayaa bogaadiyay dhaqangalka qayb ka mid ah wadahadalladii labada madaxweyne iyo dadaalka ay sameysay safaaradda ee dhanka isku xirka labada dal. runtii maanta waxaan joognaa Mina Suez ee waddanka Masar waxaan soo dhaweyn u sameynaynay markab ka yimid Soomaaliya oo waday 280 neef oo lo ah waa markii ugu horeysay oo laga soo shaxniyo magaalada Muqdisho dekedda Muqdisho waan runtii waa arrin guul ah dabcan arrintan waxay ku timid dadaal badan ay safaaradda sameysay iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka xanaanada xoolaha Sheekh Nuur oo runtii ayagana dadaal badan iyo xiriir badan la soo sameeyeen dalka Masar iyo wadahadalladii labada madaxweyne oo markuu madaxweynaha ku yimid booqashada rasmiga ayaa waxa kamid ahayd in dib loo furo hagaajinta ganacsiga maadaama ay Soomaaliya caan ay ku tahay xoolaha runtii arrintan waa arrin guul ah waxa leenahay waa iftitaaxii koobaad ama bilowgii koobaad la keeno shaaxinadan waxaan rajaynaynaa wax badan inay sii furmi doonaan. sidoo kale Axmed Abu Qadra oo ah ganacsadaha soo iibsaday xoolaha ayaa isna dhankiisa u mahad celiyay dawladda Soomaaliya oo gacan ka geysatay in dib loo bilaabo ganacsiga xoolihii Soomaaliya ee la keeni jiray Masar. magacayga waa Axmed Abu Qadra waxaan ahay milkiilaha shirkadda. طبعا احنا بعد توجيهات الفتاح السيسي شرم الشيخ اتفقنا ان احنا نقوي علاقتنا بالصومال ونفتح خط تبادل تجاري بيننا وبين الصومال. مركب كان سيدي حولها وحقوق نقونية شحنة بالنسبة لنا من الصومال من حوالي 30 سنة وهي طبعا ساعدتنا في تسهيل الإجراءات طبعا مع دعم الحكومة الصومالية. فإن شاء الله وحن رجينا إن أيوسيسي نزود صادراتنا من الصومال على مصر وعندنا بلان احنا نشتغل كل شهر كمية حوالي 4000 بقر والجمال برضو. dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka go'an sare u qaadista in laga miro dhaliyo horumarinta xoolaha nool maadaama xoolaha nool ay yihiin laf dhabarta dhaqaale ee Soomaaliya iyo ilaha dakhli ee ugu weyn bulshada iyo xukuumadaba. Mawlid Xasan Cabdi Mawlid Muha warbaahinta qaranka Qaahira.